لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له شهادة نشهد بها مع الشاهدين وأدخرها عدة عند الله ليوم الدين. وأشهد أن الحلال ما أحله الله وأشهد أن الحرام ما حرمه وأشهد أن الدين ما شرعه وأشهد أن ساعة آتية لا ريب فيها وأشهد أن الله يبعث من في القبور وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله فصلوات ربي وسلامه عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المضر. أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. قلب وناكسن إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ما أنت دسكله فله المحامد والمجامع كلها. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ما أنت دسكله انتينا مدش صوب بشيء قلبت هالكن السجوتيمي kulankii si rasmiya saaku inoogu bilaabmay. galabtana laba muxaadaro oo degdeg oo waxa weeyaan isku xigaynu galaynaa. berri subaxa kuwaan idin hayaa ka daran, gelinka dambe isagoo hadal kari maayo, berri sabtidii axaddu ka sii daran. waxaan isleeyahay haddii aynu qolada maansoorteendhooynayna siyaano halka aynu iska degnaa aynu awoodayaan halkana baynu iska deglayn. soo sidaa maaha warso sidaa maaha waay aad ba u mahadsantihiin. mahad gaara waxaan siinayaa dumarka. waagii hore marka muxaadaro la qabanayo hal saf baa la siin jiray, waxaa la odhan jiray intaa yar cawriga fuqaato halkaa iska fadhiista. oo arrin ragoo idinna weydinkaa awooddoodii iyo cududoodii bay muujiyeenoo maanta saf labaad bay soo dhacsadeen, ka saddexaadna waa ku socdaan. marka iyaguna mahad gaara bay leeyihin. ilaahay ha barakeeyo. war aamiin dhaha. qaar baa dumarka macalaamiintaa kala yar gaabinaya. war aamiin dhaha, allaha barakeeyo. waxaan si gaar ah iyagana runtii ugu mahad celinayaa. saakoo dhan baa mahadnaqi la wado, ma raba inaan ku noqdo. laba kooxood marka laga yimaado bahda reer Hargeysa ee madasha soo buuxisay ee soo bishay, waxaa si gaara runtii aan ugu mahad celinayaa dadka safarka u soo galay barnaamijkan inay yimaadaan oo runtii jigjiga inooga yimi, madasha ka soo qayb galay. garaadku uu hogaaminayo, ugaasku uu hogaaminayo. runtii iyaduna waa waxaad iyo aad loogu farxo. sawirka inaga baxaya daqiiqadihii iminka aynu bilownay durtaba dhowrka kun ay daawanayaan iyo intiina halkan fadhida ee hoolkii Mansoor ee weynaa oo buuxa waxay turjumaysaa Hargeysa inay tahay hooyadii khayrka. ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin barakeeyo. galabta yaan idin hayaa. waxaa la yidhaahdaa almacruufu laa yucaraf. laba sheekh oo culimmada soomaalida marka la yidhaahdo iyo caalamkaba runtii magac weyn ku leh. sheekh waa sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi. sheekhna inuun haddii cidi ay abaal dacwaddan ku leedahay, mid loo soo dagaalamay iyo mid loo soo dadaalay iyo mid waxa weeyaan qalinka iyo muxaadarada iyo dooda lagu soo difaacay hadday inuun jiraan ragga foolaadka ka ah sheekh cabdinaasir xaaji axmed. labada culimo ah baan galabta idiin hayaa. baaraka allahu fiikum. aad baa u mahadsantihiin. sheekh cabdirashiid baan ka horrayn doonaa, kadibna muxaadarada labaad waxaan siin doonaa sheekh cabdinaasir. maadaama oo caashuura ay ahayd dadka badankoodu ay iska soomanaayeen, waxaynu isku dayi doonaa insha allahu inaynu muqtatafaad iyo kookoob uun qaadanno. saasaynu ku talagelaynaa. muxaadarada sheekha ee hore waa furitaan, nasaa'ix iyo tawjiihaad iyo codkiisii macaanaaye halaasiga ahaa aayaadkii ilaahay wax ka mid ah inuu inagu maqashiiyo. halkanuu codkiisii ka baxayey. dabeetana shiikhu wuxuu yidhi codkaa markaan dhegaysanaya salaadaha laga duubay aad baan u jecelay. waxaan ku reer Hargeysana way jecel yihiin, laakiin isagoo layfa bay ka sii jecel yihiin. sheekh cabdinaasir mawduuca guud ee ciwaanka kulankeennan oo dhami uu ku saabsanaa buu isaguna inoo soo koobi doonaa. addiinu nasiixa
diintu waa nasteexo iyay u tahay iyadana ereyuu inaga odhan doonaa aan si wada jira u soo dhoweyno sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi falyatafadal الشيخ مشكورا. بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. waxaan u malaynayaa suuratul furqaan baa la sii shiday oo salaada aan ku tukinaynay soo ma marka iyadoo naga dhammaanin baa yaa la kala gooyey marka si qur-aankii maa sii dhammaynaya aakhira suura isagaana ku bilaabanaynaa wahuwa khayru muftataxin bihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري بسم الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا من كلام ربنا جل جلاله. الله نو أنفع هذا الإلهي أن مقلي سبحانه جل جلاله وعم نواله ولا إله غيره. إخواني أخواتي بارك الله فيكم. أرت إلهي بما هذا إسكاله سبحانه جل جلاله نكل ميي نقول كل ميي ولبا ذكر جيس سبحانه وتعالى إن أنه حسنه إن أنه هلكا كلا الله بأنه بل قادر إلهي وويناء عظيم كأها رحمتي يا نحريستي يا ملائكتي نهريرين شيء يا أنت صو إذا الوحكة وين الله رب العالمين ملك الملوك ذو الجلال والإكرام رب الأرض والسماوات ونحسه. أنت من حتى يذكرك الله يعني محات هي محات كسمي سنتهي أسلكاغو محوية هي أسلكاغو محوية هي أسلكاغو وتراب وعيد وعرضاس ودوبو وديقو كجوك سنيسو آذن كفري سنين إننا وحسكادك تموي أسلكاغو هالكاسا لغا أبوري فأنت حفنة من تراب يذكرك الله الله رب العالمين ملك الملوك باكو حسين كبعدنا وحده نطفة من ماء مهين. لذلك عتابك عنانت إلهي مركو عنانني إنسان كان دأب جنسية هي كفر جحود نعمة الله قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. أسل كيسي وحزوسي حاتها أصلا خلقت من نطفة خلق الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. دائما هذا أفير ستنا رب العالمين جل جلاله إنسان كتيها إيو كبر كإيو أن إسقاط خات كإيو أوامرت إلهي سبحانه وتعالى إنه كفري إيو وحاوكينا وامركو حالة النعمة والاستقرار يبر واقضي يبشبشته كجرو أي إلهي كفريا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إلهي بهر سبحانه وتعالى. كل كاسو إلهي هذا يقول روحه نحسوسية بداية إنه سيدا هاي بالله قابو محوها حكيتك باللابتي نهاية ذاتنا سيبا نقود دونتا. أما بالله قابو فمن تراب ثم نطفة من ماء مهين أياد هاي ثم علقة حنجر يرو ديقا أذوق بالتصور شيء كذا إذا ملك لينا كل التقين هذه يسكعبر شخصيا فلان ابن فلانة إمام هذا إمام ملك له إمام مسك له ولي قبل بواحد دون طبعا نقو علقة دما متجمدا عالقا في جدار رحم أمك يوم من الأيام من هذا حيث بل حصوصه حنجرتها يرديقا المكالين كهوية لغو علقي هلكا كنتنيد لولا لطف الله إلى لنتيسا سعود كاي سعودتي هوية ما لها إمريسي كسو قبن كري كسو دادن كري هذا حيث أذوق شخصيا أنت نفسك قفك لباها ومنه خلقك الله على قدس إليك. ولذلك خطابك إيوه هذا اللي يقوه الرئي جنسيا مخلوقة من مخلوقات الله إنسان كان لأنه أنه كم من نهي لسنا بشيء في ملك الله الله وحده النهي ملك في ملك الله ذرة وأركتين هذا عالم الفلك مركز الله سوره يوم أقول لك أنت شو صوران وأنا ركتين فيديو يده وأنا ركتين أقول لك أنا بنتهي ونقول يا مركي أبراج تاس ووين يو أفلاك تا يو
مريخ iyo fulaan iyo loo fiiriyo wala shay saga iyo qorraxdiisii waxa dhanba waxba noqon maayaan adiga dhulka inta leeg marka inteed ka tahay kunta hakada marka lutfu rabbika wa ihsanihi ayaa ilaahay kugu abuuray oo ku ahaysiiyey lidaalika waxaan nidhi khitaabkii ugu horreeyey ee ilaahay uu bani aadamkan ula hadlay dakarahu bihadihi الnicma nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo qaaru xiraa fadhiyo halkaa tacabudkiisu wuxuu ahaa baa lay nebigu wuxuu ku cibaadaysan jiray markaa ilaan diin looma soo dejinin oo adkaar lama siinin oo qur-aan weli laguma soo dejine tafakur buu ahaa nabiga sala allahu alay wasalam ilahay fikir buu ku riday waa maxay dadkan hayrullahi caabudaya waa maxay insaankan kaamilka ahee basharka ahee sawiga ahee caaqilka ah ee dhagax uu isagu gacmihiisa ku samaystay ilaah ka dhiganaya ish hada ee weliba xubbigiisa iyo kalgacaylka dhagaxa uu ilaaha ka dhigtay ay keenayso marmarka qaarkii inuu ilmihiisa u gowraco qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilm وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين marka nabigu arrimahaas ka fikiray leesh mal uu dadka kala hadlay iyo si uu la hadlana ilaahay wali ma siinin oo quraankii looma soo dejin waa marka uu ilaahay leeyahay wa wajadaka dallan fahada ila nabigu dalaalka halkan ilaahay uu ka hadlayo nabigu wali sanad ma caabudin ilaahay baa ka dhowray عصمه الله من عبادة الأوثان منذ صغره صلى الله عليه وسلم ضالا عن هداية الناس وأتكلم سنيد بإلهي قوة نولي مركا خطابك وجوه الرئي إنسان قال قولها الضيوحوها بسم الله الرحمن الرحيم أركي جبريل النبي محمد ويمد وقبتي ومكرنا يساع قال لي جهدي إيو دابا سيداي اقرا ما انا بقارئ مركي صدحات اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرا باسم ربك ابو الهك بالله ربك الذي رباك ربوبيتنا وحي تابنيسا من الأسماء ذا إلهي أو كلا إيشان تابنين لأنه تخصك أنت مربوب باتهي ربوبية ربك وحيكو باللابتي أذون جرين با إلهي كو هيسيي أذون عطنين وويدي سنين با إلهي أدون كنكو كاني كبعد نواكو برباريي نطفة ربك آغا مركاد نطفة هيد ربك آغا هو الله علاقة مركاد هيد كان ربك الله مضغة يرو قبل يرو هربة مركا هذا هيد ربي قاقو الله بوها هلب كاسا إلهي لفاها كدقي ولفاها قد نفت الكودة هذا ويناتي ويناتيني يغو يرير با إلهي سبحانه وتعالى اشكر ركبي ومضغدي هلبكي لفاها كدقي إمام الغزالي بارو مالينا يقولي ماذا حكى لي يا انت وكفر ديو وشن يكونتون لف oo la isgeliyay 5 iyo 50 laf baa ilaahay tarkiibka ka sameeyay dabadeedna xaqfiga u sameeyay iyo weelka maskaxdu ay gasho ka bacdina fakki u sameeyay wajigi iyo indhahan intaan la sameeyay meeshii ay galayeen kan hagaajiyay waa Allah wa rabbuka alladhi rabbak sanku meeshuu ku fariisan lahaa kan sameeyay waa rabbul alamin labadan fakki ama fuq bay Soomaalidu hiraabaan u maleynaya labada fuq الفوق الأعلى يفوق كان هوسه كان اسكو ركبي اسكو هجاجي اسكو ديليتري والله ربك كان كدغي فوق هوسه انو دغدغاقو وكان كلنا اسك تاغان يهي وليس ميشيسا una marin ma fiirseen mid hadda isku dayo dad fadhidaan bal ka hor inaad dhaqaajaa isku dayo ma dhaqaaqayo kan hoose maxaa loo dhaqaajiyay carabkiibu wataayo haddii labaduba dhaqaaqa lahaayeen carabku beri hor uu eber noqon lahaa oo ilkahaas la tagi lahaa لحكمة يعلمها الله فربك ترتيب تاع عجيب كا هي تصوير تاس بديعة حقيقة كسمية متغنى سدح مجدي هوستود حا إلهي نوشاقي في سورة الزمر مركو إلهي ليه
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث قدرتيسو كو شيغيا يا اوديسو انتي تahay saddex mugdi waa caloosha waa mashiin mandheerta waa ilma galeenka mid walba mugdi buu wataa saddexda mugdi hoostood kan sawirkan ku sii ka war awoodiis marka waxa lagu xusuusinayaa inaad muqaarana samee soo hadda lama wareersanin oo lama indha sarcaadsanin farsamadan bani aadamku ay maanta sameeyeen alaabtan hadda gacantaan ku haysanayo iPhone iyo Galaxy iyo iPad iyo iPadkaas oo dhanba kuwa sameeyay lama yaabanin qol mugdi hadii lagu soo xiro nalka loo dabiyo ma sameyn karaan madaxay gidaarka ku dhufan lahaayeen فهذا هو صنع البشر أما صنع الرب تحت ظلمات ثلاث سدح مجدي هوستود كان كو حريقي عندها اسكم ماشو ذي كدغي إن هذا يستبى مر لهايين أحد نقول لهاي ورشو أن وحبك لقرني أما اسكا كان حقلا وسنك كو سمي أو أفك كو هجاجي أو بشيما كيالي بشيما هنا سيدها إيو كدغي هلبك كدغي بشيمها قول لف نقول لها سيبها حالك نقول لها كيف كان حالك هذا ربك الذي رباك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أرمها سوى أرمها قرآنك وتفتروي في بالتفصيل وغاضوي سلقوا حسوسيو بالله وغاض ما شاء هذا هيد إيو سيادو جعلات ربك تحب ربك لأنه هو الذي رباك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين المير مرك هذا هيد على شو إذا أتكسر بحذي نكاجن هذا وين كان إذا هذا ولا نفس الشيء المير مرك هذا هيد على شو إذا أتكسر بحذي وحي يقول الرياض بهاتي إن أذكر راتته من هذا وحكى عنته لأن عنته هذه هو وحي هيد حدد ما laga soo ilaahay uu ka soo qabtay manarka hooyada oo xudunta kugu xiran halkaas cuntadaadu ahayd 9 bilood ama ka badan ama ka yar ee joogtay meel kale kama wax u cunay halkaas cuntadaadu ahayd kii waa la gooyay meeshii waad ka soo baxday indhaadu baahatay alam naj'al lahu aynay wa lisanan bu rabbul alamin yiriyo wa asnanan bu oran baa la yiriyo leano markaa hilib iyo bariis iyo badar ma cuni kartid waxaad u baahan tahay lisaanan ay liyamussa bihi xalmata thadyi ummihi baa leeyahay wa aalatu lmassi suu halkaa uga jaqo iyo wa shafatayni laba bishimood oo u qabta si aan caanuhu midig iyo bidix uga leexanin man sawaa laka hada alaysa huwa rabbuk mid kaga xaqnimo badan lixubbihi biyaa jira والذين آمنوا أشد حبا لله أحب الله إلهي جعل هذا ليس هناك أحسن من الله إليكم وكإحسان كاسدين هرمريي سبحانه جل جلاله على شو إذا مركز كسب بحذي كبر باريي الكمال لهين وحكون رامسته عنه إذا كاجد دياري حل هذا متى كمسلم إلحاد باصوب من هذا الملحد من هو مد ملحدا مر وحو يقول بري وحمر رميسني قولدا قالدا عد بو هايو مeel baan ku kulanay markaasaan ooyaa ku sameeyay hooyaday baa ay sameysay waxaan hooyada ma faraheeday intee galisay caloosheeda bay kugu sawirtay oo sankaaga iyo indhaha iyo ku sameysay ma waa iska sameysmay taa iska dhigmaan meel caloosha hooyada maalinta ka soo baxday waxaan ku yarkii mutarjimka waxaad ku tiraa أنت على شوية أتكسر بعض ما هذا عنتي قال له وحي جعلين همبرجر وحلا يلاقيه ساندويشة واحد يجعلين ما همبرجر بعد عنتي كله بانه مركز شوية مايا ما هذا عنتاني حوير وحا عنها ويريبان عنها ويريبان عبيبور وحاله وحن كويدينه هو يدا عنها مية لهيد أنت هذا علوش هذا كسر بحن inuu garanayo waa umalayna laakiin uu isdiidsay wuxuu yiri ma ogi ma jirtaan hooyada markaad hadda tagto safarka
hooyada weydii caana may lahayn caanahaasi waxay soo baxeen markaad adigu caloosheeda ka soo baxday yaa isku beegay bixitaanka adiga caloosheeda aad ka soo baxday iyo caanaha hooyada kaaga yimid yaa isku beegoo soo waqti ka dhigay og inaadan cuntada dadka waaweyn cuni karin oodan hamburger cuni karin oodan sandwich cuni karin markaasoo kale meel buu gelayaa waa isdidsiinayaa yajxaduuna kalaama laakiin marka ugu dambaysa waa isdhiibayaan wuxuu leeyahay way jirtaa waa awood weyn baa jirta awooddaa weyn magacii ilaahay unbuu diidan yahay wa huwa allah aladi laa ilaaha illaa hu marka ikhwaani akhawaatii majlis kaste iyo fadhi kaste oynu isugu nimaadno aynu kala kacno xub ullah ziyaadatu maxabat illah ilaah waa jecel lahay oo waxaa galabta inteennaa isu keenay waa xub ullah ilaahay jacaylkiisaynu isugu nimid waxa ugu weyneen ka sheekaysanana xubullaahi ha noqdo nebiyada markii ilaahay soo diray tafaasiilu dacwati ilaahay baa noo kafaalo qaaday cid kale looma sheegin cidna lagama sugin mufasiriin baa iman doona iyo waxa iyo lama sugin nebiyada cibaadadooda iyo daacadooda kale iyo arrimahooda shakhsiga ah ilaahay ma tafsiilin si guud ahaaneed wuxuu nooga sheekeeyey nebiyadu inay salaadaha tukan jireen inay zaka la bixi jireen وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وسكوت لكن نبي إبراهيم إمي سي صلاته سؤهد عدة قانا مله داود عليه السلام إنه تسبيح سنجري وصلاة كنجري سكوت هنيد بإله نوغا شيء وولي بإن إله معجزة قارسيو عد قرح بدن انتو كو أقريو dabadeed buuruhu ay la jiibiyaan oo la akhriyaan iyo geedaha iyo shimbiraha ayaa ilaahay nooga sheekeeyey laakiin imisa salaad buu tukan jiray oo shayba lama yaqaano tafaasiisheedana ilaahay ma sheegin laakiin ilaahay wuxuu si tafsiil ah oo bahsan warka oo fidsan sida loo yaqaano wuxuu ilaahay uga bixiyey dacwadu sidee bay ahayd sidee bay dadka ilaahay u jeclaysiin jireen nabi muuse calayhi salaam markuu fircawn u tagay فرعون إذا بدروه يري هذا الإذا بدراه وقلة أدب أيوح يري قال فرعون وما رب العالمين رب العالمين كانت شيء اسم محوية هيوي موسى عليه السلام رب العالمين بالويدي رب العالمين بكشكي قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين وإمس قال ما ترسل ما إلى ترجال وسقال قال أو اسكت بحكته وسورة الشعراء وحوار بين موسى عليه السلام وبين فرعون موسى رب العالمين بوك شكين فرعون عي وحق لي أيو بقرنا يسا أفلقاته موسى اسكما جوابيو نفتي سنة من الدفاعيو قال لمن حوله ألا تستمعون موسى مركو رب العالمين شيء رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين فرعون وحو يروان وحو الشيء ميدان مغلين وحوك وهب يا وكلوي موسى هالكيسو كسي ويتحوير قال ربكم رب قادي ويدي شيء وربكم ورب آبائكم الأولين فرعون واش قد يعيبه يرق إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وبواليه مؤرن موالي محادي عايسة مدهن ماشي سكسو يتحوير قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون مركي وتهديد قال يروى كحريا مركاسهم بقال له إن ير نفتي سكشيك يوش دفاعه يري قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين نبي يدو مهمة ذو وحي أحيد حب الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعرابي يري من أنت رسولك إلهي بكوير كما تاهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوابي أنا رسول الله جوابك وبن باهيد لكن أنت كما ديسنين
wuxuu kala hadlay acraabigan ninkan reer baadiyaha ah ee u yimid ee su-aashaa weydiiyey ilaahay inuu jeclaysiiyo rabbigii inuu jeclaysiiyo wuxuu leeyahay ana rasuulu llah alladii idaa asaabaka durun fadacawtahu kashafahu canka rabbigii haddii dhibaata ay kugu dhacdo oo aad barido dhibaatada kaa faydayey rabbigaasaan rasuulkiisa ahay ربك أنا رسول الله الذي إذا دعوته أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابتك عام سنة قحطي يا أباري هديك قول عضو أو آد بريدو روب كوسو تجيجري هدي دابذا دي آد سارليد أما هشي آد بوشانيد أما أوركي كورهرنا عنتذا دي عبيد دي وحرم بكوس هرايين أي كالنتو أو آد بريدو kuu soo celin jiray rabbigaasaan rasuulkiisa ahay yuxabibuhu ila allah marka ilaahay aan isjeclaysiino subxaanahu jala jalaaluhu cadamadiisa aynu ka sheekaysanno nasaa'ix ama kulankan nasiixada loo yimid nasiixada guud ahaaneed inta aanu meesha wada joogno ha noqoto inaanu qalbi khaalisa ilaahay la nimaadno in qof walbo inaga inaga mid ah bad'an min almutakalimi kan hadlaya iyo kan dhegaysanaya mustawaha doonto ka joog diinta ilaahay meesha aad joogto muqasir baa tahay addoon waxaa tahay muqasira u gaabiyey oo haddaan ilaahay kuu naxariisan waa lagu cadaabi haddaadan ilaahay kuu naxariisan waa lagu cadaabi liannahu mukhaalafadii ugu horreeyey amarka ilaahay khilaaftay waxaad ku mutaysatay ma taqaanaa jahannamaad ku mutaysatay lianna alcisyaan lilaahi ciqaabtiisu waa naar iyo jahannam haddaan ilaahay ku cafin meesha uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walaa ana camalkaygu janno ima gelin janno qofkaan gelin naar buu gelayaa nabi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walaa ana camalkaygu ima badbaadinayo ilaa an yatagamadani illaahu biraxmatin minhu wa ixsaan marka mustawa kaste diinta ka joog meesha haddaad xaafid tahay haddaad qur-aanka taqaano haddaad caabid tahay haddaad ahlu salaad tahay fadhiga aan isugu nimid waa inaad niyeysataa tawba iyo tagyiir ilaahayow waan dembaabay ilaahu muqasir baan ahay ilaahu dembinaan ahay ilaahu haddaadan ii dembi dhaafin waan halaagsamayaa waa inaad yaqiinan qalbigaaga u gelisaa tagyiirna la timaadaayo aad niyeysataa fadhigaa inta uu socdo iyo majliskaas inaad kala noqoto xub ullah ziyaadatu xub illaah wa taacati illaahi tabaaraka wa tacaala wax walba himaar bay leeyihiin midhaha isu imaatinka iyo kulankan iyo magaranaysaa dadaalkan la sameeyey hadday noqon weydo fardan fardan in nin walbaba qof walbaba uu dareemo inay wax u kordheen maxaa kuu kordhaya macluumaadka iyo cilmigu waa fara badan yahay oo culimmada maa sha allah aftahanka meel kastaad ka helaysaayo alaabtaan maasha ilaahay noo hagaajiya haddana noo sahlay telefoonkan baad ka helaysaa laakiin ujeeddada iyo maqsuudka iyo midhaha laga dan leeyahay halkan waxa weeye in ay kuu korodho qurbullah ilaahay u dhowaanshihiisa subxaanahu wa tacaala in daacada ilaahay ay kuu macaanaato in aad ku macaansato dikriga ilaahay in qur'aanka aad jeclaato in daacatu llahi cala alcumuumi aad ka badsato markii hore sidaad ahayd arrintaa ma niyeysanay kulligeen soo maana niyeysanay ma niyeysanay insha allah ilaahay baana siinaya biidni illahi tacaala allah huwa alladii yucطina ويرحمنا ويغفر لنا ووالدينا والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه نجا وقت مرك ولا جاري إن شاء الله خير بين كل مينا وأنا وذا جوجنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا وفقنا ووفق بنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا ولا تخيب فيك رجاءنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين جزا الله الشيخ خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى شيخها كابال مريو لبا محاضرة أو كلا ayay noo hadhay oo sheekh cabdirashiid uu soo noqon doono haddii ilaahay yidhaahdo
labadaa mid ciwaankeedu ma idiin sheegaa waaye waxaan sila haddaad sheegto qolyo badan wakhtigay deetana haddana noogu dar marka intaa ha dhowtay igu sii fidi lahaydeen iminkaan meel nabada jooga waa halkaasaan ku joojinayaa safar dheer oo tan iyo laascaanooda uu soo galay sheekh cabdinaasir xaaji axmed muxaadarada koowaad inuu yeeshana waanu ku ballannay sababtoo ah waxay la ciwaan tahay guud ahaan mu'tamarka aynu isugu nimi oo ah in diintu nasteexo tahay sheekhaynu dhegaysanaynaa waa mid ka mida dadkaan ugu jecelahay runtii dhegaysigooda marka waxaan aad iyo aad runtii uga codsanayaa sheekha in isaguna uu inoo soo koobo ereyada qiimaha badan leh ee diintu nasteexo inay tahay iyo cidda ay u tahayna iyo tiirarka nasteexadaasi ay ka kooban tahay ayaa sheekha ku soo dhowaynayaa falyatafadal الشيخ مشكورا مأجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا مضاشا قيمها بدن سوكا كاني إنه خير كذا نوافج من اللي ويدي سننا وعلاتها موضوع أن ربينا كلمات كيدا هذا وأن نصيحة وموضوع لو استيي كون علميات كان لدوني إن شاء الله وفر مع الموت أو شيء سلوسه قبيو وأنا سككوب كوبيا موضوع وجود بلارية هاي وأنا نقول رندونا قدم كواد نصيحة محاتها هاي نصيحة أهمية إلى هاي وقدم كلبات لمن تكون النصيحة يوسقنا نصيحة آدابت النصيحة وحسامين إيسا عيد اللو تشيدين يكون سامو بيسو عوامل شيري أسبابهم حيين انت بروح نكي قاعد كرو فإن شاء الله يسكت ديتونا دينتو يا حديثو دي اللغة العربية دي كسو ديجين مركز النصيحة اللي هذا اللغة العربية waxaa laga soo qaatay ilayna aimada qaarkood nasaxa arajulu thawbahu ninkii maradiisi ayuu toshay qamiisun mansuux waa qamiis toran marka naasaxa waxaa la yidhahdaa waa qofka maryaha tola oo haddii maradu ay dadoosho ama dildilaacsan tahay way ceebaysan tahay marka la tolana ceebtii baa laga biyey waa la hagaajiyey نصيحتنا قفكو حراكة وحيسن دليلها كم مقدة ولو نصيحيي ويكبين دليله وتوصي أما وحال هذا نصحت العسل من الشمع مربكي أيان ميري وحنشدي يقوشكي وحي كتشريبان كم ميري يوالي هذا اللغة العربية بكتمي ومركا شيء صافية وناكسن باكا soo baxay meesha naseexaduna ikhlaas bay ku salaysan tahay qofka cid loo naseexaynayo qofka u naseexaynaya wax saafi ah oo aan daacadnimo ay ku jirto oo aan dan gaar lagu wadan ee la jecel yahay wanaaga ayuu qofku sameeynaya si malabka saafiga qashqiga looga saaray oo kale waxa la yiraahdaa wa iraadatul khayri للمنصوح له وإن خير لدونه يوناك قفك الله نصيحين أيه وقفك مؤمن كاهي ولالكيس مؤمن كاه مركز تبا وحلج عليه وناك وهو نصيحين أيه خير كو شيء أيه وإنه خير كويه له وكو إراليه وكو توجيهيه أي نقول يساعدي بوضعي هوشة أن نصيحة عنك كواهيد أو مدك الودانك كواهيدنا والنبي الله محمد صلوات الله والسلام عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ورسولك واحد دبيا أي استغنى دبيا
wuxuu ku dadaalayaa inaad hanuuntaan oo wanaagsanaataan buu ku dadaalayaa waa turayaa oo ummaddiisu u turaya u naxariisanaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh naseexadu waxay leedahay muhiimad weyn bay leedahay ahamiyaddeeda waxaa ka mid ah waxaynu odhan karnaa waa xuquuqda ka dhaxaysa qofka dadka mu'miniinta dhexdooda xuquuqda ka dhaxaysa weeye naseexadu oo walaaltinimada ilaahay dartii walaaloo yahay baa waxay keenaysaa in laysu naseexeeyo oo xuquuqdii lixdayd waxaa ka mid ah ida istansaxaka fansax lahu hadduu naseexo ku weydiiyo walaalkaa u naseexee wax kastuu naseexo kaa weydiiyaba sidee diinta u bartaa buu kaa weydiin karaa sidee maxaan ku dhahdaa aan u ganacsataa buu kaa weydiin karaa sidee baan ku guursadaa buu kaa weydiin karaa sidee marka waa inaad u sheegtaa naseexada oo aad waxaad aaminsan tahay ee saxa ee dantu tahay aad kala hadashaa rasuulku wuxuu inoo sheegay almu'minu mir'aatu akhiihi lmu'min qofka mu'minkii walaalkii muraayad buu u yahay muraayadda markaad isku eegayso muraayad ku khiyaamayn mayso muraayaddu waxay ku tusaysaa naftaada maxaa kaa xun maxaa kuu fiican markaa mu'minka saas uu yahay wuxuu la jecel yahay mar kastaba inuu u sheego ee dhaliisha ka muuqatana inuu ka saxo wanaagga uu leeyahayna uu ku ayido ayuu markaa ay noqonaysaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi saa la socotaanba saxaabada waa ku muhaajiriin ansaar walaaleeyey siday isugu naseexayn jireen ee ninba ninka kale naseexada u dhowri jiray salmaan alfarisi iyo abudardaa baa la walaaleeyey salmaan wuxuu soo booqday walaalkii abudardaa reerkii buu yimi xaaskii oo waxoogaa dharkay gashan tahay iyo qaab waxoogaa wax ka aanay yar fiicnayn baa uu ku arkay xaalkaagu muxuu yahay buu ku yidhi waxay tidhi akhuuka abudardaa laysa lahu xaajatun fi dunya ninkani nin adduunyo dan kale ma aha nin dumar iyo waxa iyo hawlaha ku jira ma aha markaasuu waa yimi abudardaa qaduu sameeyey waaba soomaya abudardaa markuu qaadii salmaan u soo dhigay ayuu yidhi anu waa soomaali waa raashka cun buu yidhi soonlayne ila xogta la baxyi moogta xogta heliya ninkan siduu raashka cun habeenkii markii la seexdayna fiida dawgiiba qiyaamuleelkiisa u sharaaqday seexa buu yidhi guriga gal kaa socon mayse nuskii dambe ee xilligii munaasabka ahayd ayuu u kiciyey salaaddii u yidhi hadda kac waa daris tarbawi ah oo naseexa ah oo camali ah markaasuu gebagabadii warka dardaaranku siiyey waxay ahayd inna lirabbika calayka xaqa walinafsika calayka xaqa waliahlika calayka xaqa faacti kula dii xaqin xaqahu rabbigaa xaq buu kugu leeyahay naftaadu xaq bay kugu leedahay xaaskaagu xaq buu kugu leeyahay qof walba xaqiisa sii saasuu kaga boqolay wuxuu u tegey abudardaa rasuulku u tegey rasuulka ilaahayow ninkii salmaana saasuu yidhi sadaqa salmaanu salmaan run buu sheegay buu yidhi waa naseexo camali ah aynu odhan karno qoyskii bay taabanaysaa gurigii bay taabatay naseexada waxaynu odhan karnaa si aad u ogaata muhiimaddeeda waa shaqadii ambiyada oo dadkii ilaahay doortay waa dadku ugu jecel yahay wuxuu abuuray waa rususha uu soo diray rususha shaqadeedu waxay ahayd inay ummadda gaadhsiiyaan naseexadii ilaahay u soo dhiibay oo diintoo dhan baa naseexa saynu u tegi doono xadiidka soo socda nebiyullaahi nuux baa ku hadlaya nebiyullaahi huud baa ku hadlaya saalix baa ku hadlaya shucayb baa ku hadlay mid kastaba ereyga ah buu adeegsaday ubaligukum risaalaati rabbii wa ansaxu lakum wa aclamu min allahi maa laa taclamuun buu nuux leeyahy fariimihii ilahay waan idin soo gaadhsiiyey waan idiin naseexeeyey wuxuu leeyahay huud ubaligukum risaalaati rabbii wa ana lakum naasixun amiin fariimihii ilahay waan idin soo gaadhsiiyey waxaan idiin ahay nasteex baan idiin ahay weliba loo aaminay hawsha u hayo oo nin waxaan aan wado ee idiin soo gudbiyey ma gacan bidixayn
سيدي لا يقصوا لي يعني يقصوا قد بي صالح لي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين لما أنتوا معين كاسي وضعهاين رسوشو كلية ما هي نصيحة qof kasta oo mu'mina baa dowrkiisu yahay inuu naseexeeyo markii loo tashaday nabiyullaahi muuse oo fircoon iyo madaxtooyadiisa go'aankii lagu duugay la yidhi hala dilo nin mu'min ah oo xogtii la helay oo ordaya wajaa rajulun min aqsa almadiinati yascaa qaala yaa muusa ina almalaa ya'tamiruuna bika liyaqtuluuka fakhruj innii laka min annaasixiin war waa lagu tashaday buu muusow waa lagu dilayaa fadhiga ka kaco carar dareenkaa uu bixiyey waa naseexu la ordayay meel fogna waa ka yimi orod iyo degdegna waa wada waayo hawshu uma baahna in laga gaabiyo waayo fircoon iyo ciidankiisii waa degdeg badan yihiin ka dheeree buu dowrkiisa u qaatay waa nooc naseexada ka mid ah naseexadu waxay u tahay muhiimadeeda saad u garato waxay u tahay wasiilo hagaajinta bulshada dhexdeeda waxyaabaha khaladaadka dhacaya waayo dadku inta waxyaabaha dhacaya waa laga falcelinaya waxba iska dhacaya waxay u baahanayaan in wax la saxo ganacsatadu waa ogtiin oo ninku markuu ganacsi ku jiro taajir yahay oo warshado leeyahay ama ganacsi weyn ku jiro rag mustashaarina buu samaystaa dad buu lacag ku bixiyaa shaqaynaya oo maxaa qaldan maxaa saxan sidee loo hormariyaa ganacsiga kan lacag fara badan baa lagu bixinaya naseexadu iyaduna waa dowrka saxaya bulshada muslimka ah waxyaabaha ka dhacaya ee khaladaadka ah oo cumar baa waxa laga soo guriyay inuu yidhi laa khayra fii qawmin laysuu binaasixiin qowm aan naseexayn khayr ma leh walaa khayra fii qawmin laa yuxibuuna annaasixiin kuwaan jeclayn ee dadka naseexayaan kuwaasina khayr ma laha muhiimadeeda waxaad ku garanaysaa nabiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi saxaabada qaar ka miduu ballan kula galay iyo beeco oo jariir ibnu cabdillaahi albajali wuxuu leeyahay baayactu rasuula allahi sala allahu alay wasalam calaa iqaami asalaah wa iitaa'i azakaa wannusxi likulli muslim waxaan ballan kula galay rasuulka inaan salaada oogo oo zakada bixiyo qof kasta oo muslimana aan u naseexeeyo oo ninkii ka iibsaday wax ka iibsaday isagoo dukaankii ka maqan oo dareemay in lacagtii uu siistay inaanay saxanayn oo qaali ay tahay wuu ka daba tego wuxuu yidhi waxaad yeeshaa qiimahaad bixisay maaha arrintu ee u kaadi oo u saxay uu leeyahay ballan baa naseexa ku galay ilaahay baan ballan la galay marka waa shay camali ah oo uu rabo inuu hirgeliyo waan iska gudbaynaa waxaynu u gudbaynaa naseexadu yay u tahay yay u sugan tahay waxay u sugan tahay xadiidka rasuulka ka jawaabay abu ruqaya tamim ibn aws addaari markuu yidhi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh addiinu nasiixa qulnaa liman ya rasuula allah qaala lilahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wacaammatihim addiinu annasiixa diintu waa naseexo ereygaasi waa erey culus oo macnihiisu yahay markay qolyaha lugawiintu ama balaaqiyiintu ay ka hadlayaan jumlada ismiga ah ee mubtada iyo khabarka oo labadu ay macrifo yihiin waxay faa'iidaysaa waxa la xasri hadalku diintoo dhammeyn intaa ku koobantahay ma diinu ila nasiixa baad moodaa macnaheedu in laga dhadhansanayo diintuba waa naseexo macnahaasaa meesha ku jira saa darteed baa xaafid ibn xajar markuu ka hadlayay xadiidka wuxuu leeyahay ama waxaa la odhan karaa lagu macnaynayaa waa mucda diinta ilaa wax badan baa naseexana waa jirtaa wax kalena waa jiraane mucda iyo meesha ugu muhiimsan weeye naseexadu sida loo yidhaahdo alxaju carafa xajku waa carafo dee xajku arkaankeena waa leeyahay laakiin waa rin guriga u muhiimsan haddii la waado carafa haddii la waayo xajkii waa la waayey naseexa haddii la waayo diintii waa la waayey bay ka dhiganta sida loo yidhaahdo annaasu tamiimun carabtu dee waa faanayaan intaas dadku waa tamiim ninkaas dee waa taagtay waa faanay somaali almaalu alibilu xoole waa geel xoole waa geel
dee xoolo geel kelgood maa lakin waxaa loo jeedaa waa meeshay ka nooshahay oo xoolaha iyo meesha ugu qiimaha badan weeye macnaha waa lagu fasiri karaa buu yidhi macno kana waxaa la odhan karaa xadiidka daahirkiisa baa lagu daynayaadoo wax kasta oo qofku uu sameeyo oo aanu ilaahay dartii ula jeedin laysa min addiin marka waxay noqonaysaa diintii o dhan de waa naseexo oo alxaafid ibnu rajab alxambali oo xadiidka sharxinayay kitaabkii jaamic culum alxikamka wuxuu leeyahay xadiidkii markuu soo qaatay xadiidu jibriil oo rasuulka la weydiiyey islaamku muxuu yahay shantii arkaan islaamku sheegay iimaanku muxuu yahay 6 iimaan buu sheegay wuxuu ka hadlay ihsaankii markii dambe wuxuu yidhi kaasi wuxuu ahaa su-aalay weydiinayey waa jibriil oo diinta idin baraya marka wuxuu yidhi halkaa waxaa laga qaadanayaa dee addiinu nasiixa markii la yidhi islaamkii waa naseexo arkaan islaamka waa naseexo iimaanka waa naseexadii ihsaanka waa naseexo marka diintu oo dhan inay soo galayso wax markaa la baciidsan kara ma aha sida ay u fasirayaan culammadu marka la yidhahdo naseexa waxay u tahay diintu lilaahi bay u tahay ma ilaahay baa naseexa inooga baahan oo wax loo sheegaya jawaabtu waa mada khataabi oo kale wuxuu yidhi hadalkaas wuxuu yidhi waxaqiiqatu hadihi alidaafa raajicatun ila alcabdi fi nusxi nafsah faallahu ganiyun can nusxi الnaasix ma aha ilaahay inuu inooga baahay naseexay macnaheedu waxa weeyaan qofka naseexaynayay u noqonaysaa oo marka la leeyahay ilaahay baa diinta naseexa u tahay waa adigaa lagaa doonayaa rumayntaad rumaynaysa wey ilaahay inaad rumayso oo aad ka ilaaliso waxa allah uu leeyahay oo cibaado ah aadan cid kala siinin oo tilmaamaha uu ku tilmaansan yahay alle aad u dayso oo sidii aad u oggolaato oo taacada iyo cibaadada aad ilaahay subxaanahu wa tacaala u khaalis yeeshid oo waxa ilaahay ku siiyey oo gallad iyo nicam ah ee faraha badan aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadisid oo inay mabda'aagu ahaado waxaad wax u jeclanaysaa waa ilaahay dartii waxaad wax u nacaysaa waa ilaahay dartii marka arrimaha noocaas aad la timaadid baad waxay noqonaysaa inaad tahay ay soo baxaysaa macnaha lilaahi macnahaasay noqonaysaa maxaa looga jeedaa likitaabihi waxaa looga jeedaa inaad rumayso kitaabka qur-aanka kariimka inuu yahay markaad kitaabadii kale o dhan rumaysay kitaabkii u dambeeyey ee ilaahay soo dejiyey akhrintiisa si haddaba sheekhu ka hadlay iyo ku camalfalkiisa akhrintiisa la akhriyayo oo la doonayo inuu qofku daa'imo oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh iqra'u alqur'aan fainahu yaأti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih uu kuu shafeeci doono bara qiyaamaha akhriskiisa ku camalfalkiisa xifdigiisa arrimahaas oo dhan ayaa waxay noqonayaan likitaabihi naseexada looga jeeda gaadhsiinta iyo faafintiisa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah dadka lafdigiisoo la baro qiraa'adiisa akhriskiisa tafsiirkiisa waxaasoo dhan laga shaqeeyo waxay noqonaysaa naseexadii markaa likitaabi macnahaasay noqonaysaa marka la yidhahdo lirasuuli bay naseexa u tahay waa rumaynta nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaam ee la rumaynayo oo la ateecayo rasuulka wuxuu la yimi oo dhan lagu ateecayo wuxuu rabay laga tegayo man yutic rasuula faqad ataaca allah qofkii rasuulka ateeca allah buu ateecay ee jacaylka la jeclaanaya rasuulka oo waajib ah hiilka loo hiinayo mabda diinta la yimi xayan wamayitan qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii marka haddii aad ilaahay jeceshiin waa inaad raacdaan yuxbibkum allah marka waxa weeyaan akhlaaqdii rasuulka iyo dhaqanka wanaagsan ee uu la yimi inamaa bucistu liutamima makaarim alakhlaaq akhlaaq oo dhan oo wanaagsan nabiyullaahi moxamed baa la yimi in lagu sifoobo oo lala yimaado inaad ogaato ka shaqaynta dacwadda iyo mabda uu faafin jiray inaad ku shaqayso baa naseexadu noqonaysaa oo wuxuu odhan doonaa bari qiyaama rasuulku waanu ku yidhi saxaabada wuxuu yidhi antum mas-uuluuna canii famaa antum qaa'iluun war bari ka maalin waa laykiin weydiin doonaaye maxaa odhan doontaan jawaab fiican bay bixiyeen oo waxay yidhahdeen waxaan odhan doonaa annaka qad ballagta wa addayta wa nasaxta waxaanu qiraynaa oo odhanaynaa ka markhaatinahay inaadna soo gaadhsay diintii inaad naseexaysay hawshaad inaad gudatay arrintaas baanu ka qiraynaa bay yidhaahdeen naseexo waxay u tahay a'immada muslimiinta bay diintu u tahay naseexo waa kaalmaynta loogu kaalmaynaya xaqa
وطاعة لو أطيع أي خير كأي شيء يعني وحي تذكر يكون قامين يندين تيرغن كونكسن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم علماءنا وكملوا الأمر تذكر ثلاثة أمة وهي مسلم كهو قامين ينا ويسوق ليان مركا إن طاعة لو أطيعه مع سنة أن لو أطيع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن لو برارجيو أو لوانيو أو خير كالله شيخه ما وردي وحليه مركو كهليين نصيحة الملوك أولى الناس بأن تهدى إليهم النصائح وأحقهم بأن يخولوا بالمواعظ إذ كان في صلاحهم صلاح الرعية وفي فسادهم فساد الرعية وهذا الأمر علص وحيري تدك أمضا إن الله نصيحيه أو خيرك الله شيخه وددك أمضا تلد وهي وايو هجاجان أمدك هجاجيسا حمانتي حمادان أمدك حمانيسا مركا نصيحتاسي وشيء أي سلف كان كل رقم تشيرين ولا يمن تشيرين وأنا مرة كجابين تشيرين وحكم إذا إن الله قب حين الله تقال من مرة دي ووضدي صح كنت أجي إن خروج يكون بحتاني الله تقال كانوا بنانين بحكم إذا نصيحة أئمة الدين توي نصيحة تاي وحكم إذا على الإمام النووي عدم الثناء الكاذب عليهم أما أنت بينتأ dadka madaxda had iyo goor la wadwado in la iska daayo baa nasiixadii ka mid ah oo had iyo goor aale waxa curfi iska noqotay ninkii madaxa ahaa maanta oo dhan waxa laga yaabaa meel isugu yimaado dabada la haysta maanta oo amaantiisa qofkan bani aadamka dad maanta ka badiso isaga qulus marka dambe wuxuu iska dhigayaa qof dadka ba ka sareeya oo wuxuu tagayaa heer marka dambe inuu darajada uluhiyada isgaarsiiyo amaantu khatarteeda leedahay amaantana qaar baa intay ku taxtagaan dee laga yaabo inuu meel xun ka tuuro sidii kii ibnu hani markuu muciz al-ubaydi amaanayay ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. أعوذ بالله من الشيطان إله وكريه بدي مركز سيدا هذه أمانته سكبر عبطه باش مركز عمال حمي يقول على عيسى وأنا صارق نوح بدن ودي تشري أما أنا مركز ضدكو ما ذا كل يدون يتواب بلوكا جباش والرسول صلوات الله والسلام عليه وحوار كي نين أعضو في صحيح البخاري بقول حديث كاسي نين بو أعضو أما هو أما نكسوري رسولكم وهذا هلاك تنبولي قطعتم ظهر الرجل دبرك كتشبسين أو أهلكتم أما هو أهلكتم وايو هلاكم حكاية منايا نينكي ويصلب حياتي هذا وتوعد بوجوج المايو وحكم إذا النصيحة دينتو مضاحة النصيحة وطاي دعين تلو دعين لو دعيو وين في عنادان لو قد دعيو وشيء اللي دونيو وفي صحيح مسلم وحكوس الرسول كانوا يري أي مدين وناكسني يا خيار تاي وكوا تعشين يقول إن شعل وكوا دعين إنسان يقول دين دعي يقول رسول صلوات الله وسلامه عليه مركب حورن شري مع محمد هدان أوجه الدعاء اللي يقع أقبله يوه والله يشغل الدعاء صلاة أقبله يام وحن أمي يصيرها مضحدة رقم مضحدة ذلك وجامين إياه ويا هدوه هجاجو ودعاء الله يقع أقبله وما دورن بافي عنانيسا نصيحته وحيقول نقول نيسا ذلك مضحدة وعلى هذا ضم بيوتاي وإني هدي الجورا الرعية تتكلم الحكومة يتكلم الحكومة تشبه إنه كدحية وشرع يقول فريا إن لا تشهدوا وشاورهم في الأمر بإله النبي الله محمد صلوات الله والسلام ووحي يقول سوى تجيو أي وحلو لي هاي لا تشوا حصل بصري وحيلي رسولك طلعوا مباهنين وهي وحي باكو سعودي لكن دنت اللي قال لي هاي واجدين لو جدين يا حكامته يا ضدك ملاحظة أمته قامين إياه إن أنا إلا وين مركز تبع إن تشي شان أو مدة لا تشدان أو حويديان إن لا تشدان عمر الخطاب ابن الجوزي مركم مناقب عمر كشيكين يي أي نبى الله لو اتق الله يا عمر قاربه وحوجا هذا كمارك لا اتق الله وإلهي كعب صلى لكن مركز تسيل ويردي بو حوجا بعد ما دمرين وحوير تشلان يا مركز سوريدي لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها خير مري هذا إنسان قورن يا هذا أنا نقول ده إنسان خير مرين مركز نين كمدح مركز لوانيو إنه جرو صداه
oo waxa loo sheegayo dhagaysto oo u dabacsanaada la doonaya caamatul muslimiin bay naseexa u tahay diintu naseexa u tahay waxay caamada dadka mujtamaca intiisa badan ay ugu tahay naseexo hanuuninta lagu hanuuniyo masaalixdooda diinta dhan baa masaalixda dadka u socota الدين مبني للمصالح بودي مصالح هذا يا يقانا اللي يكو أبوري أونكم كو كاني كتابك كو سودتشيي الله أسباب دنت هذا يقان مركا دين تو نصيحة وتهالو إن لغو هانونيو أو خير كالله الشيخو أو حيابها الله إلهين يا أساسيات كضروريات كدين تو الله إلهيو قف كمالكي سو الله إلهيو نفتي سو الله إلهيو عقلي سو الله إلهيو وهويان cirdigiisa oo la ilaaliyo arrimahaas oo dhami waa waxay diintu ay ka hadlayso saa darteed bana saxa kugu noqonaysa qofka muslimka cawraadkooda la asturo qofka baahan oo dan dhibaatay isla bayo macruufka khayrka loo sheego arrimahaas oo dhami waa naseexada dawaabida aadaabta naseexadu ay leedahay waxa kamid ah qofka naseexaynaya waxa laga doonayaa ikhlaas baa laga doonayaa maaha kelmad ay jeedi oo eraga jeedi oo xun kalmaaha marka hore adigu inaad ismirataa qalbigaaga kelmaddu waa inay si fiican ula soo baaxadegtaa oo si daacadnimo dadka ugu jeedisa wuxuu leeyahay ibn rajab raxmatullaahi calayhi qofku xadiidka markuu ka sharxinayay qofku intaasoo dhan la heli maayo ilaa uu ka bilaabo naftiisa isagu naftiisa uu ka bilaabo oo ishagaajiyo markaasuu noqonaya qof naasixa talabaad aadaabta doonaya arif waliin in la helo markuu naseexaynayo qofku وينو طلع وينو أدبع ذاتك أدبع سنيهاي مركو وحو شيغيو والرسول وحنو شيغي صلوات الله والسلام عليه ما كان رفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه شيغا هديو الله صعودو لبرهين يدبعين وهي نقول إسائيني قل حصو هدي هذا الكعنف لغوة طيالات كيو وهي نقول إسائيني حماته صحابي معاوية بن الحكم السلمي مركيو ninkii hindisay salaada gudaheeda soo ku jira salaadu yarhamuka Allah wala yukacibuuni dadkii baa indhahay hurufay oo saada laga hadlay markaas wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam aad buu amaanay sida uu maartay ugu dabciye hadalka wallahi wuxuu yiri ma ra'aytu mualliman ahsana minhu muallim ka wanaagsan ma arag ma kaharani wala darabani wala shatamani ima hurufin ima anaanan ima garaacin wuxuu yiri arintani uma suubato يعني أرمات هذا الشيء إنما هي تصبيح والتكبير وقراءة القرآن بقول رسول صلوات الله والسلام عليه إمام الغزالي مرقو كهذا رفقك هي دبرنتا نينكي بقر كاي مامون لو رانشر بان انتو سو غلاي ايو اد ugu taagtaaga canaan wacdi adag buu ku hadlay markaas wuxuu ku yiri ya rajul qad ba'atha Allah man huwa khayrun minka ila man huwa sharrun minni ilaahay wuxuu soo diray buu yiri mid adiga ka khayr badan baa ilaahay soo diray mid aniga iga shar badan waa loo soo diray markaas waxa lagu yiri faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha wa fir'aun nabi ilaahay muusa la soo diray adiga ka khayr badan yahay fir'aun aniga iga shar badan yahay anu muslim baan marka dabci buu hawsha cagta u dhig ninkii dhalinyarta ahaa rasuulka ilaahadow zinadaan rabaan idin ogolaato zinada inaad ii fasaxdo ayaan ogolahay yaan rabaa buu ka rajeynaya markaas waxay yiraahdeen dadkiiba aad u booday marka waa laga booday wuxuu daayay soo dhaw buu yani rifqiga iyo dhibrinta iyo ilaajinta qofka in la daweeyo diintu waa qofka in la daweeyo daweyn bay ku shaqeysaa markaas uu soo dhawow atuhibbuhu li ummik ma la jeceshay hooyada in laga zinaysto ma yabuudi dadkuna hooyooyinkooda ma jecel buudi gabadhaada ma la jeceshahay in laga zinaysto ma yabuudi dadkuna gabdhahooda lama jecla eedada in laga zinaysto ma jeceshahay ma yabuudi dadkuna eedooyinkooda lama jecla habaryarta ma la jeceshahay in laga zinaysto mada dadkuna habaryarooda lama jecla markaas intuu gacanta laabta ka saaray ayuu duceeyo yiri Allahumma ighfir dhanba wa tahhir qalba wa hassin farja wa ducaya ilaahu dambigiisa dhaaf oo qalbigiisa nadiifi ila waxaan macsidu waa cudur waa marad oo xubinka Allah u ilaali maalinta waxa ka dambeeyay wuxuu zina ka nabcaaday ma jirin baa la yiraahdaa
naseexadu marka waxay leedahay aadaabteeda waxaa ka mid ah qofka markaad u naseexaynayso inaad si sira ugu naseexayso oo aanu isku dayin qofku iyadoo mujtamacu dhex joogo inuu hebelo waxaa jooji hebelo waxaasaad samaysay hebelo waxaas naseexa lama yidhahdo naseexadu marka waa inay haataa si gaar ah oo wuxuu odhan jiray imaamu shaafici qofka walaalkii si sira ugu naseexeeya faqad nasaxa waman wacadahu calaaniyatan faqad fadaxa washaana qofkii si calana ula hadla oo yidhaahdaa waad khariban tahay oo nin waxaasaad samaysaa saasaad samaysaa saasaad yeeshaa qofkaasi wuu fadeexeeyey waana xumeeyey marka si caam oo wax loola hadlaya dadkana cidda wax ka dhacayaane xumaanta samaynayana dee rasuulku talmiix iyo ishaaraad buu bixin jiray maa baalu qawmin maxaa ku dhacay dadka qaarkood oo saa iyo saa ay saa u yeelayaan allahuma kii xadhkaa goostay ee xumaha bannaankaa soo dhigtay ee u badrheedhaya ee naseexo lagala quustay waa la naqdinaya waana la caddaynaya laakiin dadka wax ka dhacdhacaya qaladaadku way iska badan yihiin markaa maa baalu qawmtaas baa rasuulku salawaatu ullahi wasalaam ay ku wadi jiray waan soo koobkoobayaa qodobka u dambeeya soo koob baa lay leeyahay naseexadu qodobka igu dambeeya waxyaabaha ka dhigi kara naseexadaasi inay meesheedii dhacdo inay dadka dawayso intaaynu soo sheegnay horta meel ku gunto qodobadaa aadaabtaa meel ku xidho waxaad ku darsataa haddaad qof khalad ka saxayso atathabut waxa la yidhahda hubsasho ku day oo mararka qaarkood waxaa dhaca intaa social mediaha waxa la iska naqdinayo oo la iska maagayo waxaa laga yaaba waraan cid hubsanin oo aan laga baanaan degin oo xogtiisa loo dhaadhicin baa la naqdinayaa qol hebel baa la naqdinaya hebel baa la naqdinaya hebel baa la naqdinaya qolaa la maagaya waxaa dhici karta waxaan yani marka dambe marka la isla baaxaadego la israfaadiyo ayaa loo dhaadhacaya wixii aana jirinba tathabutku waa shay muhima allahna wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qawman bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin ta labaad qofkaad u naseexaynayso kalgacalo iyo shafaqo iyo naxariis ku day oo markaad wax u sheegayso inaad ka fiican tahay oo adigu maaragtay aad toosan tahay ha ku eegine qof maaragtay anaad jeceshahay oo wanaag u leeyahay khayrkiisa xitaa u qir nicma rajulu cabdullahi buu rasuulku yidhi low kaana yaquumu leyl ninka hebel cabdillahi hadduu wanaagsanaan lahaa waa nin wanaagsan laakiin hadduu maaragtay tukan lahaa salaatuleylka marka hordhac weyne kaa horraysaadoo adoo ku og xumaanta haddana maaragtay wanaaggiisa iyo khayrkiisa iyo inaad u sheegto oo naseexada aad waxoogaasaan dawijka wax ku dhex ridid waxbaa lagu dhex rid wax ku dhex rid baa loo baahan yahay waxaynu ku gebagabaynaynaa in la helo cidda rabta inay cid u naseexaysoy qudwo iyo kudayashaa lagaa rabaa inaad ahaato adigu waxaad sheegayso inaad ka run sheegto oo naseexadu qur-aanku aad wuxuu ceebaynayaa nimankii reer bani israa'iil iyo qolyo dadkana wuxuu sheegi jiray iyaguna khilaafsan ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun marka in aad mar kastaba isku daydo waxaad ummadda u sheegaysaa adiga inay kaa muuqato yaa ayuha almucallimu hayrahu hallaa linafsika kaana da tacliimu tasifu dawaala di istiqaami wadi dana kaymaa yasixu wa anta saqiimu hadal dheero ninka abaase wada du'alu tiriyey baa kugu filan ilahay waxaan ka rajaynaa subxaana wa tacaala inuu naga dhigo kuwa naseexada qaata ee ku camalfala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atubu جزاه الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى الشيخ هكاب المريو ميزانك حسنات كان الله سارو مياد داشين آمين ما مغليه إلهي الشيخ بركيه شيخي كهرينا الله بركيه كو سؤال برينا الله بركيه انت كراي نود من الله بركيه كو اينو دغيسن دونا الله بركيه انت اينو دغيسن الله بركيه وحاسو بركانا الله يسو كين درو بريو جمعة وركيده ما يدين سياه بريو جمعة إلا waxaynu u baahannahay in khayrku saasuun socdo laakiin intaanan jimcaha gaarin khamiistii baan dhamaanine maanta dad badan waa iska soo manaayeen dabeetana su'aal baan isweydiino waxaan nidhi afurkii 20 daqiiqo ka hadhay dadku hadday soo afuraan hal muxaadaro miyaynu ku darnaa mise berri subaxaynu sii bilownaa idinkaanaan doorashada iska leh
weliba mid dab iyo naara weeye muxaadarada maqribkii oo idin hayo gaara marka haddaad tiraahdaan ha lagu darana waa ku daraynaa haddaad taan berri subaxa inoo bilaabantana waa idin siinayna gacanta taaga intiina la caawa ha lagu daro waa joogaynaaye aqlabiyatun saaxiqa bay odhan jireen qolada baarlamaanku markay codaynayaan waaya intiina le maya sheekh caawa maanta intaasi naga badan ee aynu berri ka dhignana gacanta taaga 4 midh baa tiine ilaahay baa idinla jira haddee dimuqraadiyaddii weeye sanka laynaga geliyey mar haddii laydinka batay hadal kari mayno imise culimaabaa boodhka idinku qornaa in ay 4 cisho muxaadaraad idiin gelayaan 10 soo maaha warkaan idiin hayaa waxa weeye berri 5 ka mid ah kulmaysaan waa boqolkiiba 50 soo ma boqolkiiba 50 ka shantaa weliba cidda ka sii mida ma idiin sheegaa qola aa gaar u sugayseen baa weliba ka mid ah soo maydaan garan waay berri 8 subaxnimo haddii ilaahay yidhaahdo madashu halkan ay inooga bilaabmaysaa maadaama ay jimco tahay oo salaad jimco la tegayo madal kooban 2 muxaadaro oo min 40 daqiiqaba berri la qaadanaya 2 sheekh oo culimada waaweyn baana inoo gelaya qodobkaasi waa mid 4 iyo barhka galabnimo berrito talo taa ma sheegaa taasi waa mid yeelko sheegi maayo mee sheekhay iska daa haddaan sheego qoladii gelinka hore inaan ku daray noqonaysaa habeenkiina hawl weyn oo gaaro aan meel ku qarsanayay baa noqonaysaa inaan sheego berri casarka iyagana 2 muxaadara inta casarka iyo maqribka u dhaxaysay ila berri waa jimce maqribka kadib ilaa 8 iyo barhkana hawl gaaro weyn oo culimada badankoodu ay ka qayb galayaan baa inoo dhacaya haddii ilaahay yidhaahdo intiina maanta halkan fadhidaa 3 laabkeed iyo 4 laabkeed baa runtii daawanayay si gaara baan runtii idinku mahad celinayaa halkeennan barxadda waxa weeye ciddii afuraysa ama meelahan dhowdhow ka soo afuraysa salaada markaynu ka baxna haddii ilaahay yidhaahdo muxaadaro dawo ma aha muxaadarooyinku waa kala duwan yihiin mid dawo baynu gelaynaa adeer cabdirasaaq baan u dhiibayaa inoo soo xidhaya kadibna waa baxaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inuu duceeyaan doonaya wuxuu yidhi warkiiba waa dhammaysay generaalku mar hadduu amarkaa bixiyey waxa weeyaan waynu baxaynaa laakiin waxaan rajaynayaa in sidii maanta oo kale aynu culimmada ku ixtiraamnaynay iyo garaadadu inoogu horreeyaan kadibna martidu inta kale ay baxdo kadibna dadku ay baxaan bacda salaadana aynu isu soo noqonno haddii ilaahay yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmat